بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga ee qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo halkani waa codka Soomaalida Finland SSM oo isniinta arbacada iyo jimcaha aanu ka soo gudbino wararka ku saabsan viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale maanta oo jimcaha bisha Febraayo ay tahay 12 sanadka 2021 sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL waxa Finland laga helay 407 qof oo hor leh oo qaba viruska corona taasi oo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ka dhigaysa 49572 dhinaca dhimashada ayaa shalay iyo maanta min 2 qof ay dhinteen taasi oo tirada guud ee dhimashada ee dalkan Finland ka dhigaysa 710 qof isku darka guud ilaa 82 magaalo oo dalkan Finland ka tirsan ayaa xanuunka laga helay waxaana ugu badan meelaha viruska laga helay sidii caadiga ahayd gobolka Helsinki oo Uusimaa caasimada iyo hareeraheeda oo 244 qof laga helay gobolka Faasa oo 43 qof laga helay iyo gobolka Varsinais-Suomi oo 28 qof laga helay magaalooyinka tirada ugu badan laga helay waxa ay kala yihiin sida tan Helsinki 115 Vantaa 43 Espoo 30 Vaasa 25 qof Turku 15 qof Järvenpää 13 Jyväskylä 11 Oulu 8 qof Kerava 7 qof waxaa min 6 qof laga helay magaalooyinka kala Lahti Hovinka iyo Tuusula sidoo kale magaalooyinka kala Kauniainen Nembori Mustasaari waxaa laga helay min 5 qof magaalooyinka Kirkkonummi Paimio Tampere iyo Kouvolana waxaa laga helay 4 qof magaaladiiba magaalooyinka kala Kankanpää Vouri Vihti Sipoo Mäntsälä iyo Kristiina kaupunki min 3 qof ayaa laga helay waxaa min 2 qof laga helay magaalooyinka kala Eurajoki Orimattila Maalahti Joensuu Uusi kaupunki Kuopio Olivieska Lohja Inko Salo Lempäälä Savonlinna Rauma Rovaniemi Tornio Heinola iyo Nurmijärvi inta kale ee magaalooyinkan waxaa laga helay min 1 qof waxaa daryeel isbitaal ugu jira xanuunka 109 qof sida ay sheegtay hay'adda THL kuwaas oo 18 qof oo kamidana ay ku jiraan qaybta gargaarka degdega ah sida ay sheegtay hay'adda THL waxa ay ilaa haatan tallaalka qaatay dad tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 197 qof maamul goboleedka bariga Finland ayaa sheegay inay sii socodsiin doonaan xadeymihii lagu soo rogay goboladaasi oo ahaa in ka badan 20 qof aanay munaasabadaha guud iyo shirarka isugu imaan karin waxaana arrinkaasi u shaqayn doonaa ilaa iyo 22 bisha soo socota ee Maarso sida ay maanta warbixin ku sheegeen maamul goboleedka bariga dalkaasi Finland waxaana go'aankaasi uu ka dhaqan gali doonaa dhammaanba goobaha uu ka kooban yahay maamul goboleedka bariga Finland oo ah gobolada kala ah Etelä-Savo Pohjois-Karjala iyo Pohjois-Savo sidoo kale gudaha ayaan la ogolayn in wax 20 qof ka badan la isugu yimaado waxaana arrinka la ogol yahay oo kaliya haddii la ilaalin karo dhinaca ammaanka caafimaadka iyo talooyinka ay soo jeediyeen wasaaradda hiddaha iyo waxbarashada iyo hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga waxa ay sheegeen maamul goboleedka bariga Finland in isu-imaatinka ay ku hareereysan tahay ama ay wadato khatar aad u weyn sidaa darteedna xadeyntaasi loo soo rogay ayna lama huraan tahay dadku in ay raacaan si looga hortago cudurka oo ku faafa bariga dalka Finland iyadoo ay soo dhow yihiin fasaxyadii jilaalka ama xilliga barafka ayaa hay'adda THL waxa ay dadka xusuusinaysaa warbixin maanta ay soo saartay in ay habboon tahay dadku in ay ka fogaadaan u safrida gobolada kale iyo isu imaatinka kooxaha waaweyn arrimahaasi oo khatar keeni kara bay yiraahdeen in cudurku mar kale uu dib uga dilaaco dalkan Finland fasaxa jilaalka kadib haddii dadku ay arrimaha ilaalin waayaan warbixin hay'adda THL ay soo saartay maanta oo jimcaha ay arrinkaasi ku sheegtay waxaana ay tilmaantay in maadaama fasaxyadii xilliga jilaalka ay bilaaban doonaan 22 bishan Febraayo iyadoo goboladuna ay toddobaadyo kala duwan fasaxyada gali doonaan ay habboon tahay in dadku ay safarka iska ilaaliyaan haddii ay ka maarmi waayaan in ay Finland gudaheeda u safraana ay xusuusnaadaan inay mar walba la socdaan xaaladda cudurka safmarka ee goobta ay joogaan sidoo kale in ay waqtiga isla qaataan oo kaliya dadka ehelka ama isku qoyska ee isla socda in laga fogaado isu imaatinka kooxaha isla markaana la ilaaliyo kala fogaanshaha oo ugu yaraan 2 mitir la isu jirsado marka la soconayo ama wax la sameynayo sidoo kale waxay hay'addu soo saartay inay habboon tahay in laga taxadaro nadaafadda caafimaadka ee gacmo dhaqista isla markaana la isticmaalo afshareerka
maamul goboleedka koonfurta dalkan Finland ayaa ganaaxi ugu horeeya ku dhuftay makhaayad ku taala magaalada Kotka ee la yiraahdo Dream Team Club. Makhaayadaasi oo amar lagu siiyay muddo 2 toddobaad in albaabada loo laabo. Waxa ay sheegeen kooxda maamul goboleedka koonfurta Finland in makhaayadaasi ay jabisay sharcigii ka hortagga faafista cudurrada ee ahaa in la xadeeyo waqtiyada ay maqaaxiyu furnaan karaan. 6 bishan Febraayo aanu ku jirno ayaa koox booliska wareega ah ay ka dul dhaceen makhaayadaasi iyadoo albaabadu ay u furan yihiin 12 iyo barsaqda dhexe halkii ay awal ahayd in la xiro 11 habeenkii. kooxda maamul goboleedka koonfurta Finland ee arrimaha u qaabilsan ayaa sheegay in go'aankaasi ay gaareen isla markaana makhaayadaasi albaabada loo laabi doono ilaa iyo 26 bisha Febraayo. faafista viruska corona ayaa si xooga kor ugu socota caasimadda iyo hareeraheeda tan iyo bishii January ee la soo dhaafay. 2 toddobaad ee la soo dhaafay ayaa xaaladda faafistu waxay aad u sareysay magaalooyinka Helsinki iyo Vantaa. sidaasina waxaa sheegtay dhakhtarada sare ee ka tirsan isbitaalka jaamacadda House ee Eva Rosalainen oo waraysi gaar ah siisay maanta jaridada Helsinki Sanomat ee ka soo baxda magaalada Helsinki. sidoo kale magaalada Espoo ayaa xaaladda faafista virusku ay kor u socotay inkasta oo marka loo barbardhigo Helsinki iyo Vantaa ay ka yar tahay. meelaha ugu badan ama marka la qiyaasta faafista cudurka ayaa 100,000 ee qof ee kastaaba Espoo waxa ay ka ahayd 156.4 halka Helsinki 100,000 ee qof ee kasta ay ka tahay 210.3 Vantaana ay tahay 273.7. magaalada Espoo ayaa waxaa laga helay viruska corona maalmihii ama 2 toddobaad ee ugu dambeysay 436 qof iyadoo tiradaasina ay ahayd intii u dhaxaysay 28 January ilaa 10 bisha February. Espoo ayaa cusboonaysiisa arrimaha ku saabsan wararka viruska corona maalin walba oo Arbaca ah. meelaha ugu badan ee degmada Espoo xanuunka laga helay ayaa ah xaafadda Matinkula oo laga helay 81 qof waana meesha ugu dadka badan Espoo marka la fiiriyo tiro ahaan. sidoo kale goobaha kale ee ku soo xiga Matinkula ee xanuunka viruska corona aadka looga helay ayaa ah meesha loo yaqaan Suur Leppavaara oo ka kooban Leppavaara iyo Lintuvaara oo iyaga isku darkooda 59 qof laga helay viruska corona. dhibaatooyinka ugu daran ee dhakhtaradu ay sheegtay ayaa ka mid ah in 40% in ka badan halka xanuunku uu ka yimid dabagalkiisu ay aad u adag tahay taasi oo markaa macnaheedu yahay in faafistu ay sii socon karto. 2 toddobaad ee la soo dhaafay xaaladda faafista viruska ee degmada Espoo ee markaasi ay kooxda dabagalka cudurrada faafa awoodeen in ay raadraac ku sameeyaan ayaa 29% waxa ahayd halka xanuunku uu ka yimid qoyska dhexdiisa ama qof guriga ku nool. 18% waxay ahayd faafistu mid ka timid meesha shaqada ama waxbarashada iyo xanaanooyinka. ilaa iyo in ka badan 800 oo qof oo reer Espoo ayaa haatan ku jira karantiil kaasi oo ay u nuglaadeen viruska corona iskuulka ama xanaanada dhexdiisa. dhibaatada ugu daran ee dhakhtaradu ay tilmaantay ayaa ah in munaasabadaha gaarka ay dadku isugu yimaadaan ama xafladaha ay sida goonida u dhigtaan ay adag tahay in dabagal lagu sameeyo markii xanuunku uu ka soo ifbaxo. waxaana ay sheegtay tusaale ahaan in 1% 2 toddobaad ee ugu dambeysay munaasabadaha gaarka ah ee soo gaaray xanuunka laga helay suurta gashay in la dabagalo taasi oo keeni karaysa markaasi xanuunku inuu si aad u sii faafo. 4 usbuuc ee ugu dambeysay ayaa dadka xanuunka laga helay 34% waxay ahaayeen dadka daadoodu u dhaxayso 18 ilaa 34 jir. 30% dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen 35 jir ilaa 54 jir halka 22% ay ahaayeen carruurta aan weli qaan gaarin. 15% waxay ahaayeen dadka daadoodu ay ka sareyso 54 sano. haatanna wararkii dibadda. dalka Ingiriiska ayaa waxa uu bilaabi doonaa arrin adag oo ah tallaabo looga hortagayo viruska corona oo ku wajahan dadka wadanka soo galaya kuwaasi oo la amri doono in ay galaan karantiil khasab ah waxaana arrinkaasi ay bilaaban doontaa Isniinta soo socota. dadka soo galaya dalkaasi Ingiriiska ayaa lagu khasbi doonaa 10 maalmood oo karantiila inay galaan. waxaa intaa u sii dheer in xilligaasi karantiilka ay ku jiraan 2 goor ay baaritaan iska qaadi doonaan iyagoo kharashkana iska dhiibi doona.
waxaa karantiilkaasi lagu soo gaabin karaa oo keliya haddii qofku uu helo ama natiijada ah in laga waayay viruska corona ama negative. haddii qofka laga helo xanuunka ama positive uu noqdana waxaa karantiilkaasi lagu sii darayaa 10 maalmood oo dheeraada. qofkii jabiya awaamirtaasina waxaa lagu ganaaxi doonaa lacag ka badan compound sida ay sheegeen howlwadeenada caafimaadka ee dalkaasi. sidoo kale Scotland ayaa ka mid ah meelaha sida adag arrinkaasi u qaadan doonta, iyadoo la sheegay in Scotland ay ka jiri doonto arrin ka duwan tan Ingiriiska oo ah in qofka 10 maalmood oo karantiil hotel khasaba la geliyo, iyadoo karantiilkana lagu geli doono 6 hotel ee aeroboorada ku yaala Edinburgh, Glasgow iyo Aberdeen. waxaana la sheegay in dadku ay iyagu iska bixin doonaan qarashka hoteelada, kuwaasi oo lagu qiyaasay halka qof ee kaliya inta karantiilku uu ka jiro, tusaale ahaan inay ku kici doonto 1750 pound oo u dhigma 2,000 euro. England, Wales iyo waqooyiga Ireland ayaa sidaas oo kale waxa ay qofku uu ku geli karaa karantiilka guri gaar ah haddii uu meeshaasi joogayo oo aanu ka baxaynin. Ingiriiska ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in haddii qofku uu ka yimid wadamada faafista viruska corona khatarta aadka ay ka jirto, markaasi khasab ahaan loo gelin doono karantiil uu hoteelka ku qaadanayo. arrinkaasi waxaa ka baxsan oo kaliya dadka ku dhex safra Ingiriiska iyo Ireland dhexdooda ama waxa loo yaqaano CTA, kuwaasi oo aan iyagu sharcigaasi uusan qaban doonin. dowladda Faransiiska howlwadeenadooda caafimaadka ayaa soo jeediyey in qofka uu ku dhacay viruska corona uu u baahan yahay oo kaliya 1 doos oo tallaalka viruska corona ah. Faransiiska ayaa wadankii ugu horeeyay oo arrinkaasi soo jeediya, sida ay sheegeen howlwadeenada caafimaadka ee dalkaasi Faransiiska. qofka uu ku dhacay viruska corona jirkiisu waxa uu helayaa difaac la mid ah midka uu siinayo 1 doos ee tallaalka viruska corona. sababta awgeed ayaan oranaynaa bay yiraahdeen in qofka ay ku filan tahay haddii mar uu viruska corona ku dhacay in la siiyo 1 doos oo ah tallaalka viruska corona. ilaa iyo iminka wadamada midowga Yurub ayaa waxaa ka jira heshiiska ah in dadka la siinayo 2 doos oo ah tallaalka viruska corona, iyadoo haatanna 3 tallaal oo kaliya ay ka shaqeeyaan wadamada midowga Yurub. dhinaca kale isla arrimihii tallaalka ayaynu weli ku jirnaaye. tallaalka ka hortaga corona ee CureVac oo ay soo saartay shirkad Jarmal ayaa haatan hay-adda daawada ee dalalka midowga Yurub ee loo yaqaano waxa ay bilowday in ay qiimeyn ku samayso. qiimeyntaasi ayaa socon doonta tan iyo inta tallaalku uu ka marayo tijaabooyinkii loogu talagalay, isla markaana warbixin ku filan oo ah in uu guuleystay ay shirkadda daawada Yurub arrinkaasi ka helayso. tallaalkaasi shirkadda Jarmalka ee CureVac ayaa isagu waxa uu la mid yahay tallaalada nooca loo yaqaan mRNA oo hore u helay ogolaanshaha ee shirkadda Pfizer ee BioNTech iyo midka Moderna. wadamada midowga Yurub ayaa hay-adooda arrimaha daawada u qaabilsan waxa ay ilaa iyo haatan ogolaanshaha siisay 3 tallaal, kuwaasi oo kala ah tallaalka Pfizer iyo BioNTech, Moderna iyo midka AstraZeneca. waxaana marka ugu dambeysa ogolaanshaha bixin doona golaha midowga Yurub. haddii tallaalkaasi CureVac la siiyo ogolaanshaha in la iibin karo, waxaa Finland ay soo gadan doontaa 2.7 milyan oo doos. tusaale ahaan tallaalka BioNTech ee Pfizer waxaa dalka Finland imaan doona qiyaastii 6.6 milyan. dowladda Finland ayaa ilaa iyo haatan waxa ay tallaashay in ka badan 197,000, taasi oo ah marka boqoleyda loo eego 3.5% tirada dadka ee dalkan Finland. wararka ka imanaya Australiana waxa ay shaaca ka qaadayaan in maamulka gobolka Victoria ay si degdeg ah u cilaamiyeen in la gelin doono gobolkaasi 5 maalmood oo jidxir ah. waxaa sidoo kale maamulku ay sheegeen in magaalada Melbourne ee caasimadda gobolkaasi ay ka mid tahay goobaha jidxirkaasi lagu soo rogay, halkaasi oo haatan ay ka socdaan tartanka tenniska furan ee Australia. waxaana arrinkaasi jidxirka uu bilaaban doonaa saqbarka habeenkii xilliga dalkaasi Australia. sababta jidxirkaasi ama loo kala xiray magaalada ayaa lagu tilmaamay in ay tahay kadib markii hotel ka mid ah hoteelada karantiilka lagu galo oo ku yaala Melbourne uu ka dilaacay faafis viruska corona. waxaana ilaa iyo haatan hotelkaasi laga helay tiro gaaraysa 13 qof oo iyagu qaba viruska corona.
ra-iisul wasaaraha gobolkaasi Daniel Andrews ayaa waxa uu sheegay in maadaama fayruska corona uu yahay cudur si dhaqso ah ku faafaya ay tahay buu yiri sida kaliya oo aanu ku dabargoyn karno in aan soo rogno jidxirkan isla markaana ay dadku guryahooda joogaan. waxaana uu ku tirtirsiyay dadku inaanay guryaha ka soo bixin marka laga reebo dadka iyagu sameynaya shaqooyinka lagama maarmaanka sida shaqooyinka daryeelka caafimaadka iyo dadka dukaamada cuntada iibiya. waxaa kaloo uu u soo jeediyay dadweynaha reer Victoria in ay afshareerka isticmaalaan, waxaana sidoo kale la xiri doonaa iskuulada laga bilaabo Isniinta ilaa iyo Arbacada. laakiinse waxa uu sheegay in ciyaaraha tennisku ay socon doonaan inkastoo aanay dadweynaha ka soo qaybgeli doonin daawashadooda. ra-iisul wasaaraha dalka Brazil Eduardo Pazuello ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in xanuunka nooca cusub ee dalkaasi Brazil laga helay ee Amazon loo yaqaano bishii January ee lasoo dhaafay uu yahay mid fayruska caadiga ah ka faafis badan kana khatar badan dhinaca faafista 3 jibaar. waxa uu sheegay in baaritaankii ugu horeeyay ee haatan la sameeyay ay tilmaamayaan in tallaaladu ay awood u leeyihiin ay kaga hortagaan fayruska nooca cusub. warkaasi oo abu yiri war farxad leh. Mr. Eduardo waxa uu sheegay in ujeedada dowladda Brazil ay tahay in ilaa iyo bisha January ee soo socota kala bar tirada dadka reer Brazil oo 200 milyan kor u dhaafaysa la tallaalo. Brazil ayaa ka mid ah dalalka Mareykanka kadib sida aadka uu u saameeyay fayruska corona, waxaana dalkaasi ilaa iyo haatan laga helay 230,000 oo dhimasho ah, iyadoo tirada dadka xanuunka uu ku dhacayna 10 milyan uu kor u dhaafayso. dalalka Yurub marka la eegana fayruska cusub ee dalkaasi Ingiriiska laga helay ayaa haatan farabaan ku haya dalalka qaarkood dhinaca faafista. Talyaaniga 18% ayaa fayruska la helay haatan nooca cusub uu ka yahay, halka Faransiiskana 20 ilaa iyo 25% uu ka yahay, Jarmalkana 30% ayuu ka yahay. dhinaca adduunweynaha marka la fiiriyo adduunka oo dhan haatan 108,399,537 qof ayuu xanuunku ku dhacay, iyadoo tirada u dhimatana 2,380,868 uu yahay. bilihii ugu dambeeyay ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP in 44% ay hoos u dhacday tirada dadka laga helayo fayruska corona, taasi oo ah tiradii ugu badneed ee hoos u dhaca tan iyo intii xanuunku uu bilowday. tusaale ahaan toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa maalin qurax caalamka laga helay qiyaastii 412,000 oo qof, halka intii u dhaxaysay 5 ilaa 11 bishii January ay ahayd tirada maalin walba laga helayo celceliska in ka badan 750,000, taasi oo tilmaamaysa in haatan xaaladdu ay hoos u soo yara degayso, isla markaana xadeymaha badan ee lasoo rogay saameyn fiican ay yeesheen. meelaha ay hoos u dhacday tirada dadka laga helayo fayruska corona toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah dalalka Mareykanka iyo Canada oo 24% ay hoos u dhaceen. Afrika 20% ayuu hoos u dhacday, Aasiyana 18%, Yurubna 15%, dalalka Latin America iyo Caribbeanka la isku dhahana 10% ayay hoos u dhacday. sidoo kale dalalka bariga dhexe ayaa 2% ay tirada dadka fayruska laga helayo hoos u dhacday. toddobaadyadii lasoo dhaafay meelaha sida aadka ah ay uga muuqatay in tirada faafistu ay hoos u dhacday waxaa ka mid ah dalka Boortaqiiska oo 54% ay hoos u dhacday, Israa'iil 39%, Spainna 39%. hase yeeshee dhanka kale marka la eego xaaladda dalalka Ciraaq, Jordan, Greega, Ecuador iyo Hungary ayaa aad uga soo dartay. khabiirka sare oo dhinaca cudurrada faafa oo ka tirsan jaamacadda Geneva lagu magacaabo Antonio Flaholt ayaa waxa uu ka digay in xaaladda fayruska corona ee adduunku ay dhici karto mar kale inay dib u xumaato haddii dalalku ay xadeymaha ay soo rogeen ay qaadaan ama xilli hore ay khafiifiyaan, sidiiba wadamada Yurub ka dhacday xagaagii lasoo dhaafay, markaasi oo ay khafiifiyeen xayiraadihii isla markaana ay sidii caadiga ahayd nolosha kusoo noqotay. hase yeeshee natiijadii ka dhalatay ay noqotay mar labaad in xanuunkii haddana cirka uu isku shareero, isagoo caalimkaasi dhinaca fayrusyada uu dalalka uga digayo in aanay ku degdegin khafiifinta ama qaadista xayiraadaha haatan socda.
dhinaca adduunka markaynu egnana Mareykanka 28 milyan ayuu fooda la galay haatan waxa uu dheer 2240 qof 28 milyan 24 saac la soo dhaafay 103481 qof ayaa laga helay 3068 way u dhinteen dalalka sida aadka ah uu kacsanaa Brazil ayaa kamid ah 24 saac la soo dhaafay 53993 qof laga helay 1452 ay u dhinteen ruushka 4 milyan ayuu fooda la galay sidoo kale ingiriiska ayaa xaaladiisu ay ka soo raynaysaa sidii hore xagga dhimashada iyo xagga faafistaba 24 saac la soo dhaafay 13494 qof ayaa laga helay halka dhimashaduna ay ahayd 678 Faransiiska ayaa 24 saac la soo dhaafay xaaladiisu aad u kacsanayd 22063 qof ayaa laga helay 360 waa ay u dhinteen waxaa kamid ah meelaha sida aadka ah ay dhimashadu uga jirtay dalka Mexico oo 1328 qof ay 24 saac la soo dhaafay ay ka dhinteen haatan tirada dhimashada guud 170,000 ay ku dhowdahay Mexico oo xagga tirada dadka laga helay 2 milyan ay marayso kaalinta 13aad ku jira ayaa xagga dhimashada waxa ay ku jira kaalinta afraad waana dalalka ugu dhimashada badan marka la eego adduunka dhegeystayaasha qiimiga qaayaha mudan ee hawada naga dhageysanayo wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM inta ayaan ku soo koobaynaa inta aanan ka bixin barnaamijka waa dardaarankeennii ahaa naftaada daryeel tan dadkaaga daryeel tan ehelkaaga daryeel u hoggaansan talooyinka ay soo jeedinayaan howlwadanada caafimaadka qof walow ku dadaal in aad kaalintaada ka qaadato sidii looga hortagi lahaa viruska corona taasi oo ku xiran in aan u hogaansano nidaamka naloo soo jeedinayo waxyaabaha aadka khatarta ah waxaa kamid ah in qof marka xanuunka uu ku dhaco uusan qolada qaabilsan dabagalka xanuunka u sheegin meelaha uu tagay iyo cid uu la kulmay arrinkaasi wax dhiba ma lahan hore ayaan u sheegnay cid ku sheegaysa ma jirto oranaysa hebel ayaa noo soo sheegay ujeedada arrinkan laga leeyahay waxay tahay si looga hortago inaanu cudurku sii faafin oo marka aad sheegto dadka aad la kulantay iyagana waxaa la gelinayaa karantiil si markaasi xanuunka uusan u sii faafin dadka qaar badan oo kamid ah waxyaabaha ay karantiilka u diidaan waxaa kamid ah inuu leeyahay shaqadayda ayay iga hor istaagaysaa iyo ma shaqaysan karo iyo wixii lamid ah arrinkaasi waa arrin aad khatar u ah waxaad ogaataa adigoo xanuunka lagugu tuhunsan yahay oo karantiil lagu gelinayo ama xanuunkiiba qaba haddaad baxdo oo sidaasi ay ku dhacdo inaad dad qaadsiiso in aakhiro mas-uuliyadeeda adiga lagu weydiinayo xanuunkan waa xanuun khatar oo faafa sidaa darteed walaalayaal haddii xanuunka lagaa helo u sheeg qolada qaabilsan arrimaha dabagalka dhammaanba meelihii aad tagtay iyo dadkii aad la kulantay si looga hortago xanuunka waa shaqada ugu muhiimsan ee weliba wadamada qaarkood sida Finland ay ku guuleysteen isla markaana fadliga Ilaahay ka soo suurta gelisay in xanuunka la xakameeyo oo uusan noqon sida wadamada qaarkood oo kale laakiin haddii qof walba aamuso oo uu sheegi waayo waxay noqonaysaa in xanuunka uu sii faafo warbixinta hadda ugu dambaysa waa tan sheegaysa in xafladaha gaarka ay dadku sugi maadaan sida xafladaha aroosyada dhalashada munaasabadaha gaarka marka xanuunka laga helo dadku ay aamusaan isla markaana aan cid kale sii sheegin iyagoo ka baqaya in arrinkaas ay subxan xumo ku tahay dadkii mana ahan oo hore saan u sheegnay cid ku sheegaysa ma jirto